Magaalada Alexandria ee dalka Masar sanadkii 1920 habeen kasta dumar magac iyo maamuus leh ayaa si dhab ah loo la'aan jiray iyadoo aan raadkooda dib loo helin. Booliisku wuxuu ku jiray wareer, dadkuna waxay ku noolaayeen baqdin. Qofna ma ogeyn in dhiigga habeenkaas uu ku qulqulayo guri ku yaala bartamaha suuqa, kaas oo ay maamulayeen 2 gabdhood oo walaalo ah una muuqday kuwo caadi ah. Raya iyo Sakina waxay ka yimaadeen koonfurta dalka Masar iyagoo u soo guuray magaalada Alexandria si ay nolol dhaqaale leh u raadsadaan. Xilligaas adduunka waxaa ka jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. Masarna waxaa ka jirtay xaalad dhaqaale xumo iyo amni darro aad u weyn. Si ay u badbaadaan labadan walaalood waxay degeen xaafadda Laban, waxayna bilaabeen inay furaan goobo qarsoodi ah oo lagu caweeyo, halkaas oo ay ku barteen rag badan oo dambiilayaal ah. Waxay guursadeen 2 nin oo magacyadooda la kala oran jiray Xasballah iyo Cabdilaal. 4 qof waxay dhexda u xirteen qorshe ay ku taajiraan, kaas oo ahaa kii ugu dhiiga badnaa abid ee soo mara dalka Masar. Qorshahoodu wuxuu ahaa mid aad u heeladaysan. Raya iyo Sakina waxay si gaar ah u ugaarsan jireen habeenka suuqa jooga, kuwaas oo xiran dahab amaba leh hanti muuqata. Qaabka ama sida ay u shaqayn jireenna waxay ahayd Sakina ama Raya midooda ayaa u tagi jirtay habeenayda, waxayna u ballan qaadi jirtay inay u hayso dahab jaban oo suuqa madow lagu kala iibiyo, ama dhar qaali ah oo ay guriga ku gado. Marka dhibanaha la keeno guriga, waxaa la siin jiray cabitaan lagu soo dhex daray mukhaadaraad xoogan si ay miirka u beesho. Isla marka ay habeenayda daciiftana, ragga shabakada ayaa hawshooda qabsan jiray, waxayna wajiga uga qaban jireen maro qoyan ilaa ay ka nafbaxdo si aan loo maqlin wax qaylo ah. Marka ay dilaanna waxay ka furan jireen dahabka oo dhan, kadibna waxay u dhiiban jireen dalaaleen suuqa madow wax ku iibiya. Laakiin su'aasha taagan waxay tahay, halkee bay geyn jireen meydadkaas? Si aan qofna u ogaan, waxay go'aansadeen inay meydadka ku aasaan isla gurigooda. Waxay qodi jireen dhulka jikada ama qolka fadhiga, halkaasayna ku ridi jireen meydadka, iyagoo kolka kaga shubaya caro iyo shamiindo, kadibna dabaq cusub ka dhisaya. Bilo gudahooda gurigii hoostiisa wuxuu noqday xabaalo wadareed, si ay u qariyaanna urta ba'an ee meydadka qurmay. Sakina waxay guriga ku uumin jirtay uunsi iyo miski aad u xoogan maalin iyo habeenba. Qof kasta oo soo booqdana wuxuu u haystay inay yihiin dad nadiif ah oo jecel uunsiga, laakiin carabtu waxay ku qarinayeen dembi aad u weyn. Sirtu ma ahan mid waaraysa. Sanadkii 1920 dhowr arrimood ayaa isa soo taray oo horseeday fashilka Raya iyo Sakina. Nin karaysay mid ka mid ah guryahoodii hore ayaa isku dayay inuu tubooyin dhulka geliyo. Wuxuu la kulmay lafo dad iyo ur aad u daran, wuxuuna isla markiiba wargeliyay booliiska. Booliiskii oo baaraya dhowr dumar ah oo la la'sanaa ayaa ogaaday in dumarkaas ay raadinayaan ay xiriir dhow la lahaayeen Raya iyo Sakina. Kadib markii booliiska soo galeen guriga, urta uunsiga ee aadka u xoogan iyo dhulka oo u muuqday mid dhowaan la qoday ayaa shakigii balaariyay. Isla markiiba booliiskii waxay bilaabeen inay dhulka qodaan, waxaana soo baxay naxdin aad u weyn. Waxay heleen meydadka 17 dumar ah oo dhammaantood la raadinayay. Maxkamadeyntii Raya iyo Sakina waxay ruxday dhammaan shacabka Masar iyo guud ahaan caalamka Carabeed. Sanadkii 1921 maxkamadda ayaa ku xukuntay labadan walaalood iyo raggoodii xukun daldalaad ah. Arrintan waxay gashay taariikhda dalka Masar, maadaama Sakina iyo Raya ay ahaayeen habeenkii ugu horeeyay oo xukun dil ah lagu fuliyo dalkaas. Sheekadooda waxaa laga sameeyay filimaan, riwaayado iyo sidoo kale buugaag badan, iyadoo ilaa maanta magacyadooda loo isticmaalo tusaalaha dadka dhaqanka xun oo khiyaanada badan. Haddaba dhegeysi ama daawade, maxay kula tahay sheekadan? Mana jiri karaan dad noocan ah waqtigan aan hadda joogno? Hoos noogu reeb ra'yigaaga, subscribe iyo like-na hanaga ilaawin. Assalaamu calaykum.